miyaad rumaysanaysaan inay maanta halkan joogaan dad ka fakara ama matalaya filimada Hollywood iyo lagu sameeyo qorshe la'aanta guurka iyo guurku midha laga goosta waa iniintaasi la beerayo waxaanu aragnay oo nin odayoon wada shaqeynaa nooga sheekeeyay inan yaroo dhalinyara ayaa mid kale ayuu maalin walba indhuhu saa ugu gubaa markuu arko markastuu ka soo horbaxo indhuhu buu la raacaa jooq uma idhaahdo haddana wuu ku gubaa suuligu is idhaahdaa tag oo ka daba tagaa uu hor joogsadaa sidaas uu eegaa lama hadlo markuu muddo ku wadu yaaban yahay kii kale ayuu u yeedhay oo wuxuu ku yidhi aniga ima garanaysid waxa la yiraahdaa hebel 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 adigana waan ku garanayaa waxa lagu yiraahdaa hebel 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 xaafadiina waa halka fasalka asaad dhigataa lambarkaas aad leedahay baskan lambarkaale baad raacdaa muxuu haye kursiga halkaas aad fadhiisataa noloshaada oo dhan dhakadan ka wada hayaan dhiigaaga noociisu waa nooca walaalada ka weyn waxa la yiraahdaa hebel inanta kale kugu xigta waxa la caynka kiiba yaabay waxaan doonayaa inaad siiso 2 gram oo dhiig ah oo ku dhex jira dhiigaaga inaad siiso xanuun baa hayo oo maskaxda ayuu bahaliga dhacday buro marka dhiigaaga ii dawa kii miskiinka ah uu qayli wuxuu isiri warba maxay masiibada lagu soo diray dabadeedna iyarka bacdi ayuu daw inankiisa xan waay maalin daba horta ka daba tagay isagoo suuli ka sii galayo wuxuu sitaa bahashan ee dhakhtarada kaadida iyo lagu qaado shaybaadhada wuxuu ku yidhi neew igu shub in yaroo kaadidaada soo baaray dabeedna kii dawo argagaxay wuxuu isii waalidkii uu sheegay waalidkii waxba way ka hoos qaadi waayay waxay salaadaan ilmahani waxba awhaam iyo waxaan jirin ba istusaya ilaa uu seexan waayo wax cuni waayo meel walba maray markii dambe la isugu yimi waalidkii u yimaadeen qoladii maamulka iskuulka say wuxuu jiraan inankii baa loo yeeray wareede waa maxay wax kale ma aha aniga hiwaayadayda waxaan jecelahay waxa weeyaan filimada Hollywood-ka ee vampire-ka iyo horror-ka wax la yiraahdo ayaan xoog u daawadaa marka waxaan doonayay bal awoodayda inaan tijaabiyo anigu aan ku sameyn kara taasoo kale laakiin maan islayn halkan ay gaadhaysaaba kama fakaraynin in waalidiye anigana waalidkay hay sheegin inaan kaana walaalkayo waxba uma qabino way rumaysan kari waayeen cid waliba arrinkii saaxiibadii cid walba baar macnaha qisada maxaan uga jeedaa qorshe la'aanta markaad aragto maalinna inaan baa noo yimiyo aabihii baa ka cabanaya aabihii baa qaad dabeedna inankii afku marmaroorinayaayo marba dhinaca war maxaa kugu dhacay aabaha miyaan ahayn soo miyaan xishoonay afriku igu soo lugooyay wiile afrika ayuu igu soo lugooyay hadalka aad u dhageysta afrika ayuu igu soo lugooyay calashaan imuu dhalin wuu i soo lugooyay caalam kale iska joogi lahaa waa qorshe la'aanta guurka markuu arko dadka qaar baa jira markuu arko mashaakil noocana iyo ciyaal fawda iyo kuwa waalid caasiya iyo kuwa aabayaashood iyo hooyooyinkood leynaya oranaya war sabankani balaaya guursatee tagoogaga ha ku jiro intii uu dunida baabiin lahaa ama dambi ku soo jiidi lahaa waxaan uga socdaa caqabadaha iyo qorshe la'aanta ayay ka mid tahay waxa kamid ah Allahumma salli ala Muhammad bulshadii oo lafteedii caa'ilad ahaan iyo qabiil ahaan iyo qaabkii la isugu xidhnaan jiray aad moodo in ay gashay ciladii guurkii kambaldaaq buu noqday guurkii wuxuu noqday kambaldaaq berigii hore dhaqan ahaan inaga waxa laga kala guursan jiray meelo fogfog inantu dabadeedna ambassador bay noqon jirtay inanta ceerigaaba laga soo guursaday ee degan gurnagadiyo sagag iyo fiiq marka halka loogu tago
wax weyn bay ahayd oo de qiimo leh laakiin milix haddii milix lagu daro maxay dhadhantaa yaa way isla qadhaadhata dheriga haddii la laba jeer milxiyo in adeertaa baad guursatay guurka Soomaalidu nin oday baan ka maqlay wuxuu yiri guurku nin aanu xishood idinka dhaxayn buu idinka dhaxaysiiyaa nin aanay xoolo isa siini idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiiyaa nin aanay xidhiidh sokeeyanimo ama isu dhawaansho idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiiyaa nin aan hiil idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiin jiray waa siday ahaan jirtay laakiin iminka wuu soo ururayo in adeertii ayay maraysaa iyada lafteedu waxay alcirqu dasaas bay yiraahdaan halashan xataa dadka intelligence-koodii ama garaadkii marka la eego xagga biology-ga dadka isu dhowey qaraabada dhowihii tafiirtooda ay dhalaan maskax ahaan iyo garaad ahaan waxay yiraahdaan way ka yar tahay ta dadka kala durugsani ay dhalaan walka warama dadka kala durugsan tay dhalaan way ka yara ma garanaysaa way ka fiican tahay waxa kamida xulashada carqaladaha waxa kamida xulashada iyo macaayiirta lagu xulanayo cida aad nolosha la wadaagayso dhalinyarada midna oo kale ragga rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض هدو إذن مادو عد أذكرها للنقطان لبضع صفو فرصدا دين تيسا إيا دغن كيسا أما أخلاق ديسا أقوريا هدو كاسو دونا إنان تادا nin aad ku raali noqoto diintiisa iyo dhaqankiisa u guuriya ma hadaad sidaa uu sameyn weydeen ba fitno weyn ayay dhulka dhexdiisa ku noqon fasaad baaha oo baaxadiisa qiyaastiisu weyn tahayna uu ka dhexdhixi doona halka aleelaha waynu aragnayo waynu taabana nin odayabu iiga sheekeeyo habla badan dhalay ninaan saaxiib nahay wuxuu yiri habla badan buu dhalay hablihii markay guurgal noqdeen wuxuu shuruud ka dhigtay in aanu ninka gabadh ka soo doonaya odayaal iyo ehelkaas soo kaxaysay aanu oran labadaas qiyaas uu saaro diintiisa iyo akhlaaqdiisa islaamku sheekh la yiraahdo Salman Awda oo imka Sacuudiga ku xidhan ilaahay isagiyo inta kale xidhan ba ha u gargaare oo ha ka furfure ayaa Faransiiska bari tagay may jirin markaa social media han iyo waxan dadna Faransiisku waa meelaha ugu faaxishka badan wuxuu yiri miyaad rumaysanaysaan haddii aan idinku iraahdo Faransiiska shareecada islaamka 70% baa laga fuliyaa dad badan baa yaabay islaamka 70% waa akhlaaqiyad xuduudu waa 30% waa 30% marka rasuulku wuxuu leeyahay cidda aad ku raali noqotaan diintiisa iyo dhaqankiisa hablihiina ku dara ninka odayga ahi labadaas uu ku dhigay nin kasta oo yimaada oo xiraada lacagade waxba aniga haysiin dadna ninka iga sheekeynay wuxuu ku yiri anigu waxaan ka mid ahaa markaan maqlay buu yiri aniga oo ardaya oo jaamacad dhiganaya oo aan $100 haysan ayaan isiri buu yiri wallahi meeshan ay ka dhawaatayba halkan ay ka soo dhawaatay odayga maan tago waxaan ku yiri buu yiri adeer waxaan doonayaa inaad inantaada ii dhisto ninkaana waana soo baari kartaa odayga muddo iga maqlo yiri markuu warkayga soo helay buu yiri inantu way yar tahay waxaan jecelahay inay ku yara karto oo way da'deeda yare guriga ha ku joogto 2 sanadood ballanna waxaan kaaga qaaday inaanan intaan noolahay haday qalinka iyo qadarka rabbi aanu wax bedelin in aanan cid kale ku darin oona siin dadna waxaan ku yiri adeer ma sugi karay 2 sanadood waad maadsan
ninkan sheekada ka sheekaynaya ayaa wuxuu yidhi tegey kii baa 2 sanadood sugay bal odaygaa gobonimadiisa wuxuu yidhi inan kan kale waa arday ila mid ah intuu u dhiibo $50 ayuu ku idhaahdaa inantii adigay kuu doonantahoy ku sugaysaaye hadiyad orodoo u soo iibi hadiyad buu soo iibiyaa inantu u keenaa haddana muddo ka bacdi buu u dhiibaa odaygaa dhiibaya soddonka dee ninkii isu diyaarinayay $100 buu waxaa dhahaa afraadda caailada gebigeedaba qof iyo waxoogaa yaroo hadiyada u keen rasuulku muxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam tahaaduu taxaabuu inantii ilaahay ninkii waa u barakeeyey guurkii ka bacdina way badhaadheen risiq iyo awlaad intaba ilaahay uu isugu daray bal ee hablihii ninkaasi xabadii meel xun kamay marin habeen hablo badanna wuu dhalay habeen inani kuma soo dudin sababtoo ah wuxuu qiyaas ka dhigtay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam